السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال halkaad naga daawaneysaan waa Farjana Media waxaa qabalaha balliga lagu soo afjaray arrin la xidhiidhay magtii wiil dhawaan ku geeriyooday iyadoo si nabad is-afgarad iyo walaaltinimo ku dhisan tahay lagu kala qaatay magtii goobta taariikhiga ah waxaa ka muuqday wajiyo farxad leh iyo sidoo kale iyagoo isku gacan qaaday iyo qalbiye isku bogsaday odayaasha labada beelood ee reer Iimaan iyo reer Nuur oo ah maalin guur iyo kidir ayaa si diiran isugu soo dhaweeyay kuna adkaystay in laga gudbo wixii dhacay oo la bogsiyo dhaawaca qalbiga lana sii xoojiyo walaalnimada iyo midnimada bulshada nabadda iyo isku duubnidu waa furaha horumarka iyo mustaqbalka caruurteena ayay ku sheegan hadaladooda xoolihii magtaha waxaa kala wareejiyay maamulka labada gobol ee Faafan iyo Erar iyo labada degme ee Baabuli iyo Fiiq oo ugu horeeyo hoggaanka gobolka Mudane Rabiic Sheekh Rashiid iyo madaxa xafiiska ganacsiga Mudane Yuusuf Cabdi Xasan dhanka maamulka gobolka Erar waxaa ugu horeeyay madaxa xafiiska xisbiga barwaaqo ee gobolka Erar Mudane Bashiir Maxamed Cumar degmada Baabuli madaxa arrimaha xisbiga barwaaqo ee degmada Mudane Mustafa Bedel Siyaad iyo hoggaanka degmada Baabuli Mudane Cabdullaahi Sheekh Cusmaan sidoo kale degmada Fiiq gudoomiyaha degmada Fiiq Mudane Nuur Xaashi Maxamed booliska taliye ku-xigeenka booliska gobolka Erar gaashaanle sare Maxamed Geedi taliye ku-xigeenka booliska gobolka Faafan gaashaanle dhexe Shukri Cabdi iyo taliyaha dambi ka hortagga degmada Baabuli Shaale Qaymraan Xasan Sheekh Maxamuud taliye ku-xigeenka booliska gobolka Erar Mudane Maxamed Geedi iyo taliye ku-xigeenka booliska gobolka Faafan gaashaanle dhexe Shukri Cabdi iyo taliyaha dambi ka hortagga degmada Baabuli Shaale Qaymraan Xasan Sheekh Maxamuud ugu dambeyn madashu waxay noqotay astaan dhab ah oo lagu dhaqan geliyay qiimaha wadajirka iyo nabadda iyadoo si wadajir ah loo ballan qaaday in la ilaaliyo nabadda lana xoojiyo walaalnimada isla markaana la adkeeyo midnimada bulshada Maxamed Dhuuxweyne Farjana Media magaalada Dhandhame